السلام عليكم صحابتي دقالق دمانتين kusoo dhawaada cooking with Sucaad dhammaantiin ugu cusubtiin channelka subscribe saar soo saxaabta maanta waxaan sameynaa laba nooc oo quraac ah oo zaaid u sahalsan oo macaan badan sidaan u sameynaa ayaan isna marka quraacada ugu horeysa ayaan sameynayaa taawada ayaan dabka saaray kadibna wax yar oo saliid aan ku shubay saliida markay kulaatane waxaan ku darayaa basal aan soo jarjaray marka waxa yariis basashaasi saliidaas aan isku dhex shiilaya andeen waxyaabaha kale aan ku dari doono ayaan isna asxaabta marka waxaan ku darsanayaa baradho waa si yar aan soo jarjaray markaan soo jarjaran qafiif ayaan ka dhigay zaaid culays maaha soo si dhaqso ay noogu bislaadaan baradhaha marka saliidaas waxaan ku dhex shiilaya basashaasi baradhahan wax yariis aan si sugeynaa ilaa oo wax yariis oo noogu bislaado markuu bislaado kadibna waxyaabaha kale aan ku dari doono ayaan isna waa quraac zaaid u sahalsan asxaabta waxaan rajeynaa maanta inaad ka faa'iidi doontiin quraacadan oo macaanka badan oo aad u sahalsan hadda waxaan ku darayaa tuun ayaan ku daray hal qaad yar oo tuun aan soo hoolo waaye tuunkaas ayaan ku daray kadibna hadda waxaan ku darsanayaa nus qaad oo basbaaska gaduudka midka barbarka ayaan ku daray andeen waxaan ku darsanayaa nus qaad oo filfil midoob ayaan ku daraa midka shiidan marka kadibna waxaan ku darsanayaa nus qaad oo kaamuunka midka la shiido waaye nus qaad ayaan ku daray marka asxaabta intaas markaan isku daray aad si fiican isku dhex shiilaya soo asxaabta hada basbaas cuneynin laazim ma aha qaybta basbaaska iska dhaafi kartaa waxyaabaha kale aad rabtid aad ku darsanaysaa marka hada basbaas cuneysidna okay waaye sidaas ay u sameysan kartaa kadibna hada dabool ayaan saaraa wax yariis aan sii karinayaa baradhaha kadib ayaan tusinayaa soo waa aragteen asxaabta sida uu kara baradhahina diyaar waaye hadda waxaan ku darayaa yaanyo aan soo jarjaray si yar aan soo jarjaray yaanyadaas ayaan ku darayaa kadibna waxaan ku darsanayaa basbaas oo cagaar aan soo jarjaray ayaan ku darayaa asxaabta hada basbaas cuneynin laazim ah qaybta basbaaska iska dhaafa soo intaas waxyaa markaan isku daro wax yariis aan isku qasaa sidaas kadibna waan sii sugeynaa ilaa yaanyadeen wax yariis oo jilaac ku noqdo soo waxaan ku darsanayaa cusban qiyaaska ku darso intii adiga afka ku qaadaysa ku xiran cusbada marka wax yariis waan sii sugaa waa aragteen baradhaheen iyo yaanyada si isku soo karay sidaas ayaa la rabaa marka hada diyaar waaye hada waxaan sameynayaa ukunta aan diyaarineynaa soo hada baaquligan waxa igu jira 2 xabo ukun waaye wax yariis oo cusbo ayaan ku darsanayaa oo qiyaas marka cusbaan ku daran si fiican u garaac ukunta soo hada ukunteeni si fiican ayaan u garaacaya waa aragteen asxaabta hada waxaan sameynayaa wixii baradhihii aan soo diyaariyay dabka ii saaran ayaan ku dhex shubayaa ukunta sidaas uu kor shubaya waa aragteen qayb walba dhinac walba inuu gaaro ukunta marka dhinac walba iska gaarsii marka waan sii sugeynaa dab hoos ayaan ku karinayaa si oo wax yariis oo qaleel u noqdo kor kadibna dhinac kale ayaan u gedinayaa aniga ma rabi hal xabo oo weyn ma ka dhigayo waxaan sameynayaa wax yariis ayaan soo qaadaa dhinac kale ayaan u gedinaa hadana sidaas ayaan ku sameynayaa dhinacaas ayaan u gedinaa si dhinac kalena u bislaado soo asxaabta hada rabtid hal xabo ayaad ka dhigi kartaa waa sii gedi kartaa laakiin aniga hal xabo ma rabi sidaan ayaan rabaa inaan mix aan isku dhigo wax yariis aan isku qaso ukunta dhan marka dhinac kale ayaan sii sugeynaa wax yariis markuu bislaadane waa arki doontiin sidoo noqday marka maasha Allah asxaabta waa aragteen ukunteeni maasha Allah sidaas ayaan u diyaariyay quraacda maanta qaybta koow sidaas ayaan ka dhigay waa quraac zaaid u macaan badan insha Allah idinkan markaad tijaabisiin aad arki doontiin natiijadiisa iyo macaankiisa sidoo u dhadhamaayo marka asxaabta qaybta koow waa kay sidaas ayaan u kariyay I hope insha Allah inaan ka faa'iideen qaybta koow recipe-gan hada ka heshid oo maanta ukuntaan aan sameeyay videogan si share garee si like dheh si walaalahaaga asxaabtaada arkaan ka faa'iidaan marka asxaabta waa kay ukunteena midka hore sidaas ayaan u diyaariyay marka hada saxanka aan ku shubanayaa waa quraac aad u macaan badan oo asxaabtaada u sameey kartid hada rabtid adiga subaxii dhaqso rabtid quraac macaan inaad sameystid sidaan u sameysan kartaa adiga ukun aad rabtid inaad ku sameysatid waa quraac zaaid u fudud marka asxaabta waa kay sidaas ayaan u diyaariyay maasha Allah basbaas dhadhan macaan ayuu leeyahay marka waxay rabtid aad ku cuni kartaa marka aniga waxaan ku cunayaa rooti oo guriga aan ka sameeyo waa rootigaas ayaan ku cunayaa kusoo dhawaada asxaabteeda qaaliga marka waxaan tusinayaa qaybtii labaad sidaan u sameynaa quraacda maanta qaybta labaadna asxaabta recipe-ga aan sameey doono maanta quraacda labada nooc quraacaba maanta waxaan ku sameynayaa ukun
marka asxaabta ukun jecel maanta labadan nooc oo recipe ukun aad sameysan kartiin qurac ahaan waa zaaid ayuu macaan badan yahay. Marka asxaabta sidaan u sameynaya ayaan idin tusinaya quraacda midka labaadna daawasho wacan. asxaabta inta waxaa ii saaran waxyaabihii dhan aan maanta quraacda labaad aan ka sameyn doono. Saxankaas waxyaabaha iigu jiro baaquligaas waxaa iigu jira ukun waa oo biyo aan kusoo kariyay. Marka ukunteena diyaar waaye. Waxyaabaha kale aan hadhow marka aan ku dari doono markaan karina ayaan iigu sheega hal. Marka waxyaabaha aan u baahanahay intaas waaye. Hadda taawada ayaan dabka saaray waxaan ku shubayaa saliid wax yar. Saliidaas marka aan ku shubana kadibna waxaan ku dhex darayaa basal aan si yar u soo jarjaray asxaabta. Marka basasha aan ku darano wax yariis aan ku dhex shiilayaa saliida dhexdeeda. Zaaid ma u gubaajis wax yariis aan ku dhex shiilayaa basasha. Kadibna waxaan ku darsanayaa xawaaji nus qaad xawaaji isku dardar waaye. Nus qaadan waxaan ku darsanaa basbaas oo gaduudka midka boorbarka. Nus qaad waxaan ku darayaa kaamuunka midka la soo shiiday. Nus qaadan waxaan ku darayaa filfil midoob iyo hal qaad yar waxaan ku daray maraq digaagka midka oo boorbarka ayaan ku darsaday. Marka intaas markaan isku dar xawaajiyaashaas dhan aan isku dhex shiilayaa. Markaan isku dhex shiilan hadda waxaan ku darsanayaa yaanyo aan si yar u soo jarjaro yaanyadaasiti. Marka yaanyadaas xawaajiyaashaas aan isku dhex shiilayaa. Markaan isku dhex shiilana kadibna waan arki doontii sida kale waxyaabaha kale aan ku dari doono. Marka waxaan ku darsanayaa basbaas cagaar aan soo jarjaray iyo waxaan ku darayaa tuun aan soo shiiday hal qaad yar oo tuun ayaan ku daray. Marka asxaabta basbaas cunaynin sida hore aan iigu sheegay qaybta basbaaska iska dhaafa waxyaabihii kale adiga jeceshiin oo carfis ah ku darsada. Hadda waxaan ku darayaa wax yar oo biyo ayaan ku daray si yaanyada noogu koro ay xawaajiyaashaas dhan aan isku daray. Marka sidaas ayaan u karinayaa asxaabta. Waa arkaysiin recipe-ga midka labaadna aad ayuu u sahalsan yahay. Asigan quraacadan labadaba maanta waxaa ka kooban yahay ukun inaan ka sameeyo. Marka yaanyadaas si fiican aan u karinayaa. Hadda waxaan ku darsanayaa barbaroonigaas waa midka yariiska oo basbaaska zaaid ayuu u kulul badan yahay. Kadibna waxaan ku darsaday wax yar oo kabsar caleen aan soo jarjaray ayaan ku daray. Marka intaas markaan isku dhex daro wax yariis aan isku dhex karinayaa. Markaan isku dhex kariyan hadda waxaan sameynayaa laba qayb ayaan ka dhigayaa geesaha ayaa sidaas u dhigayaa. Hadda waxaan soo qaadayaa wax yariis oo subag ah ayaan soo qaadayaa. Subag waaye. Subagaas ayaan dhexda ku shubay. Marka subageena kii Soomaaliga ma aha subag oo diyaarka caagaha ku imaado waaye. Kadibna ukuntii aan soo jarjaray marka ukuntaas subagaaseti ayaan sidaas ugu dhex shiilayaa ukunta kaligeeda. Yaanyada ma ku dhex daray hadda. Ukuntaas ayaan ku dhex shiilayaa subagaas aan ku daray. Kadibna waxyaabaha kale aan isku dhex darayaa. Asxaabta subagaan isticmaali subageena oo Soomaalida ma aha. Waa subaga midka diyaarka ee supermarket-ka laga soo gado. Kaas ayaan ku daray. Cusbo ayuu leeyahay subaga. Zaaid ayuu macaan yahay marka cuntada sidaan loogu daro. Asxaabta hadda yaanyadii iyo ukuntii iyo waxyaabihii dhan aan isku dhex qasaa si fiican. Marka waa kay asxaabta recipe-geena midka labaad sidaas ayaan u sameeyay quraacda. I hope inshallah inaan ka heshay recipe-gaan oo labada nooc quraacda oo ukunta maanta aan ka sameeyay. Videogaan hadaa ka heshin asxaabteeda qaaliga. Videogaan like saar si share garee si walaalaaga asxaabtaada u arkaan ay ka faa'idaan. Hadaa channel-kee ku xusubtidna maanta ku soo dhawaa family subscribe saar. Subscribe-ka dhinaciisna gambaleelka yariis ku yaala riix mar walba video aan soo gelay si dhaqsaad u heshaan. Asxaabteeda qaaliga waa kay labada nooc oo quraacda maanta aan sameeyay ukunta sidaas ayaan u sameeyay. Marka asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa adinkana inaad tijaabi doontiin recipe-gaan oo aad u sahalsan oo quraacda maanta aan sameeyay. Zaaid ayuu macaan badan yahay asxaabta weli oo basbaas jecel inay cunaan quraacadan hadaa sidaan u sameystiin zaaid aad uga heli doontiin. Asxaabta basbaas cunaynin laazima inaan ku darsid basbaas. Wax yariis filfil midoob aad ku dari kartaa. Hadaa ilmaha rabtid inaan u sameysid basbaas ugu darin qaybta basbaaska iska dhaaf. Asxaabteeda qaaliga waa kay quraacdeeni diyaar waaye. Ku soo dhawaada dhamaantiin asxaabteeda qaaliga. Marka asxaabta videogaan hadaa ka heshin inshallah like saar si share garee si walaalihiin asxaabtiin u arkaan ay ka faa'idaan si adinku ugu faa'ideen. Asxaabta videogeena maanta quraacda intaan ayuu ka eg yahay. Until then inshallah next video aan ismaqli doonaa with new recipe. Dhamaantiin adduunyo meel walba ka joogtaan khayr badan ayaan ii dhaafay. And as always ducada ku xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.